بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده SMCC Somali Medical Consultant Center. maantay waxaan ka hadli doonaa xalqadii labaad ama qaybtii labaad ee ku aadaneed casharkii maskaxda the brain. waxaan uga hadli doonaa qaybtan qaab dhismeedka maskaxda ay leedahay. maskaxda waxa ay leedahay saddex qaybood oo aad u waaweyn kuwaas oo kala ah cerebellum and brain stem. haddaba maxay tahay shaqada ay qabtaan saddexdan qaybood ee maskaxdu ka kooban tahay? cerebellum oo ah qaybta ugu horeysa waa qaybta ugu weyn muuqaal ahaan maskaxda waana qaybta ugu shaqada badan. waxayna ka kooban tahay laba qaybood oo isla siman oo kala xiga dhanka bidix iyo midig. nus walibana waxa uu haystaa xiidbo fara badan oo dareen wadayaal ah. qaybtan cerebellum waxa ay mas'uul ka tahay taabashada, maqalka, hadalka, waxbarashada iyo la socodka dhaqdhaqaaqa jirka bini'aadamka. qaybta labaad oo ah cerebellum oo ay maskaxdu tahay qaybteeda muhiimka ah ee labaad. qaybtan waa tan ka hooseysa qaybtii aan hadda ka soo hadalnay. waxa ay mas'uul ka tahay dayactirka murqaha iyo in ay murqaha isku mar dhaqaaqaan ayagoon iska warhayn. murqaha waxaa laga yaabaa qofka markii uu ordaayo gacmaha ama lugaha in ay isku si u shaqeynayaan ayaga oo aan iska warhaynin. waxa meeshaas maamulo waa cerebellum waliba si isku waqti ah. waxa ayna fuliyaan awood xoog badan oo tamar badan ama energy badan ku baxa. waxa ayna qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa, falcelinta, la socodka iyo dheelitirnaanta jirka. qaybta brain stem waa gacan ballaaran oo sal u ah unugyada maskaxda qaarkood. gacankan waxa uu ku fadhiyaa basada iyo laf dhabarka. waxa ayna u shaqeysaa qaab xafiiseed ama xarumeed oo kale. waxa ayna qabataa shaqooyin badan oo iyaga ismaamula waliba si iskood ah sida neefsashada qofka bini'aadamka, garaaca wadnaha, qandhada jirka, shiidida cunnada. waa wax uusan qofka shaqo ku lahayn, waa wax maamul ka imaado gudaha. waxaan ku soo koobaynaa maanta qaybteena halkaas. insha Allah waa inoo qaybaha kale.